sibilla ah oo joogto ah ayuu maayirku uga qayb qaataa jamciyadda quraanka runtii waa qofka ugu muhiimsan baa la oran karaayo jamciyadda si dhow ula shaqeeya isaga iyo tiimkiisa alxamdulilaahi rabbil caalamiin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fiih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wassalatu wassalamu ala rasuulihi wa alihi wa sahbihi ajmaciin galabta waxaynu halkan u fadhinaa xafladii soo gabagabaynta tartankii 3 cisho inaga socday magaalada Laascaanood xarunta maamul goboleedka waqooyi bari Soomaaliya soo gabagabayntiisii ilaahay baa mahad iskale marka ugu horeysa marka xigta waxaan mahad u jeedinayaa marti sharafka ka soo qayb galay dhammaantood culimada xafiiska dacwada maayirkii degmada ganacsatada macallimiinta odayaasha bulshada madaarista tartanka ka qayb gashay dhammaantiin mahad baan idin jeedinaya jazaakumullahu khayran tartankani waa tartan soo jireen ah oo sanadkii walba ramadaanta la qabto jamciyadda quraanka al-nuur deegaamada waqooyi bari ayaa qabata jamciyaddu waxay noo aasaasnayd muddo 13 sano ah ilaahay mahadii waxaa ah 9 sano inuu tartankaasi dhacay oo si habsami leh u socday madaarista quraankuna ay ku soo bandhigaan barashada quraanka kariimka waxaa ka qayb galay sanadkan 13 xarumood ardayda ka qayb gashana waxay ahayd 83 arday oo isugu jira wiilal iyo hablaba galabta waxaa la abaal marin doonaa 24 ka mid ah 83 arday oo iyagu kaalmaha sare qaatay 12 gabdhood iyo 12 wiil haddii aan magacyada akhriyo madaarista ama xarumaha ka qayb galay madaarisu abi hurayra xarumaha amal xarumaha nuureyn xarumaha daaru sacaada xarumaha daaru taqwa xarumaha xasan albasri xarumaha alwaxyeyn xarumaha qudus xarumaha iqra xarumaha alqalam xarumaha alcilmi xarumaha taaju waqaar iyo daar albirri waa 13 xarumood oo ilaahay mahadii xarumaha quraanka laga barta ka mid ah waa dhiiri gelinaynaa macallimiinta iyo ardayda dadaalka ay muujiyeen quraanka kariimka ay gacanta ku hayaan runtii wixii laga shaqayn lahaa wixii ugu qiimaha badnaa bay gacanta ku hayaan waxaan rabaa maadaama waqtigu iska kooban yahay inaan si gaar ugu mahadnaqo shirkadaheena ganacsiga ee magaalada ka jira oo iyagu sanad walba quraanka maalgeliya inta badan sanadka shirkadihii maalgeliyay ilaahay idinkii waa jecelahay halka inaan ka xuso si dhiirigelin ay ugu noqoto looguna duceeyo amaantu waxba sheegi mayso ducada ka xaasila shirkadda dahabshiil shirkadda telesom shirkadda sagal shirkadda sombank shirkadda ilays shirkadda kaamil iyo shirkadda bilkhayr jazaahumullahu khayran shirkadahaas ayaa waxay ahaayeen sanadka kuwii maalgeliyay quraanka kariimka waa bishii ramadaan oo 10kii dambe lagu jiraaye waxaan leenahay khayr badan Allah idin siiyo ganacsiga Allah idin barakeeyo aqliga iyo maamulka Allah idin barakeeyo kitaabka quraanka kuwa markasta dhiirigelin badan u sameeya oo wadada halka aan ku joojin Allah idin ka dhigo
jamciyadda Al-Nuur anigoo afkeeda ku hadlaya waxaan rabaa inaan si buuxda ugu mahad celiyo maayirka mudane Cabdiraxiim Cali Ismaaciil oo runtii jamciyadda 2 sano hadda intii la soo noqday oo dib loo aasaasay 2 sano oo dhan runtii si fiican u garab taagnaa sanadkii hore dawladda hoose oo isagu hogaamiyo waxay bixisay gawaarida qaaliga kamid ah oo jamciyadda quraanka si fiican ugu shaqeeyo oo arrimaha quraanka ka shaqeeya sidoo kale si billa ah oo joogto ah ayuu maayirku uga qayb qaataa jamciyadda quraanka runtii waa qofka ugu muhiimsan baa la oran karaayo jamciyadda si dhow ula shaqeeya isaga iyo tiimkiisa waa u ducaynana Allah barakeeyo ilaahay khayr badan ha siiyo aqligiisa iyo calafkiisa iyo caruurtiisa Allah u barakeeyo xilka uu hayana Allahna ku astiro hana ku sharfo waa mahadsantihiin wajazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh